السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وأنا سلام أصحابته ولكن حسين وإذن لك قلب وناكسن قف والباء من قام كيسان كسلام يا سلام الله عليكم. صدح قضاء يربن دوني أنا قلبت إذن له بداقه قضاء كوكوباد وعدسي قاسو waxaan sameeyay page ka magaciisa waxaan ka dhigay madaxweynaha reer Guraaga. page ka waxaan rabaa in idin kala kicisaan oo aad cumaamada igu tuurtaan. waxaan doonayaa inaan ku xayeysiiyo waxyaabihii dhaqanka iyo hidaheena iyo dhaqankeeni iyo farqiga u dhaxeeya baadiyaha iyo magaalada. waxyaabahaas aan doonayaa inaan soo dhigo iyo wixii wararka rasmi ah inaan kala wadaago. marka mar labaad waxaan idin ka codsanayaa qof kasto oo asxaabnahay ama saaxiibnahay ama aan madaxweyne u ahay madaxweynimadeeda ogol iyo kaan ogolaynba waxaan ka codsanayaa inaad page-ka ay kala kicisaan in gubeed channels noqdo iyo heleehay ugu noqonin ay ugu qaata oo page-ka ii kala kiciya. taas waa codsi. qodobka labaad aan rabay inaan idin sheego waxa weeyaan waad ogtihiin wadankii xaalad degdeg ah ku jira. xaalad degdeg ah wadankii la geliyay. qof walba oo deegaanka Soomaalida ku nool waxaan ka codsanayaa inuu isagu taxadaro oo uu isagu lafiisa u taxadaro oo islaaliyo oo qof walbaaba si aan marmarsiyo lagu helin ama aan lagu oranin halganka ku jira aan lagu oranin qof walbaaba inuu dhowrsado. waa iga talo sidaad u hadli jirtay awal hore ha u hadli, sidaad u socon jirtay ha u socon. qof walbaaba adoon cid kale u daneynaynin waxaan ka codsanayaa oo iga tala ah inaad dhowrsato. xaaladaha noocan oo kale marka lagu jirana waa la taxadaraa waayo maadaama sharciyadii iyo wixii la laalayaba qofka isagoo la soo gaarinba ama aan sharci iyo goob la geynin baa laga yaabaa inay dhibaato ku dhacdo. marka qof walba waxaan ka codsanayaa inuu taxadaro xataa hadduu wax sheegaya ama wax dhaliilaya inuu si dibaax leh oo xaqiiqo ku dhow inuu u hadlo oo sidii hore uuna u hadal. waa iga tala taasi qofkii qaadanaya iyo qofkan qaadanayna ba isagii calaladii. qodobka saddexaadan kale aan doonayna idin la wadaago waxa weeyaan waxaan la hadlayaa dadka aan madaxweynaha u ahay reer Guraaga ee xoolo dhaqatada ah. waxaan idin ogeysiinayaa ama aan idinku amrayaa inaad diyaar garowdaan. wadankii xaalad adag ku jira. nimankii argagixisada ee xoolaha inaga qalan jiray ee isku keen dhibaatada iyo balaayada iyo jinka maalin walba isla keen jiri jiray baa soo socda. way iska celinaynaa. saddexdaas sano nabadda aanu helnay ciddii inaga dhanqariyaysa ama inaga xumaysa waan la dagaalamaynaa haddii nahay dadkii baadiyaha ee xoolo dhaqatada ahaa. waad ogtiin saddexdaas sannadood xaafadaheena nabad baan ku seexanaa, nabad baan ku soo toosnaa, xoolaheena nabad baan ku dhaqanaa, meeshaan doonaan geysanaa. dhibkiina haysteen waad garanaysaan. marka cid kasta oo dhibaatadii waxaad ogay ciddii inagu samaysay u hanqal taagaysana waa inaynu ka digtoonaano. haddii loo baahdo cudud ciidan iyo hub iyo saanad iyo wax walba loo baahdo lacalan aanu ma qabayn inay soo gaadhayaan oo cidiba ay inoo iman ma qabaan aanu. laakiin haddii loo baahdo cududda wadanka waa inaga. dadka deegaanka ugu 85% waa inaga. marka waa inaynu mar walba aynu isha ku hayno xaaladuhu meesha marayaan. halkana aan idin kula wadaagi doonaa fariimaha waan idin soo diri doonaa sidii caadiga ah ee marka u kala qaadan jirnay baynu kala qaadan. aad iyo aadna waan idin salaamayaa. war page-ka kala kiciya oo page-ka share gareeya. wani dadku war saa u yara taabto war qoliyihii Soomaaliya xusuustay waan la yaab jiray qoliyaha YouTuberadu markay ii taabtay iyo maxay geeyeen oo yaaban yar u jira. war page-ka 100 kun gaarsiiya 10 cisho gudahood oo madaxweyne waxay ka codsada maalmo dhaw Soomaaliland lahayn Soomaaliland ka caawinayn madaxweyne Mustafa ay baloogay. madaxweyne Mustafa qaybti faalada commentiga naga xidhay. war anagan meel la ka xidhan inaan abaal kugu qabnee falowda iyo sheerta iyo like iyo wax walba isku kaya raaci in gubeed jeelsan nagu noqon oo nagu qaado bujbajada nagu qaaday kalsoonidii ruuxa baan nahay leena ruux walba waa inuu kalsooni iska qabo. waxay weydiinina xafiiskii aan saaka tagay ilaahina dad taqaan hay weydiinina waxaan loo noqonayn weeyaan xafiis dambe dawladeed la tagi maayo.